albaabka baabalmandab oo loo yaqaano albaabka ilmada maanta wuxuu galayaa marxalad cusub sida lagu sheegay warbixin ay baahisay warbaahinta Morning Spotlight oo laga leeyahay dalka Itoobiya. albaabka ilmadu wuxuu yeeshay ilka cusub kuwaas oo lagu tilmaamay bir iyo tiknoolajiyad. warbixintu waxay sheegtay intii dunidu ay ku mashquulsanayd raadinta saldhig military oo Israa'iil ka samaysato Berbera ay si tartiib ah u dhalanaysay quwad cusub oo badeed oo Somaliland leedahay. arrintani maaha oo kaliya maraakiib iyo hub balse waa qorshe weyn oo lagu ilaalinayo xeebta dheer ee Somaliland oo gaaraysa 850 kilomitir. siday warbaahintu tilmaantay awoodda ciidamada Itoobiya iyo tiknoolajiyadda Israa'iil ayaa dib u sawiraya khariirad cusub oo badda cas iyadoo Somalilandna doonayso inay noqoto awood cusub oo ilaalisa marinbiyoodka ugu muhiimsan dunida ee baabalmandab. warbixintu waxay si qoto dheer uga hadashay muhiimadda baabalmandab. 10 sano marinbiyoodkani wuxuu ahaa dhunta ganacsiga caalamka iyo goobta ugu nugul ee maraakiibta caalamku maraan. laakiin sanadka 2026 sida warbixintu sheegtay gacanka cadmeed maaha oo kaliya meel ay yaalaan maraakiib duugoobay iyo doomaha burcadbadeedu waxuu noqday goob ay ka socdaan isbeddel weyn oo siyaasadeed iyo military. warbixintu waxay tilmaantay in arrintani uu waaw cusub u bariyay badda iyo dhalashada ciidamada badda ee Jamhuuriyadda Somaliland. muddo bilooyin waxaa jiray warar sheegaya in Israa'iil saldhig military ka dhisayso Berbera. arrintaasina waxay dhalisay muran iyo walaac ka yimid dalalka gobolka gaar ahaan Masar iyo Soomaaliya. laakiin sida ay sheegtay Morning Spotlight, Israa'iil waxay qaaday istiraatiijiyad cusub halkii ay saldhig weyn oo muuqda ka samayn lahayd Berbera. waxay dooratay inay noqoto nashqadeeyaha awoodda cusub ee badda. qorshaha cusub wuxuu ku salaysan yahay tababar ciidan, hubayn casri ah, tiknoolajiyad iyo sirdoon iyo isku xidhka ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland. warbixintu waxay sheegtay in Israa'iil ay bixinayso maskaxda, sirdoonka iyo tiknoolajiyadda halka Somalilandna ay bixinayso ciidamada yaqaana xeebaha iyo badda deegaanka. tan ayaa lagu tilmaamay gaashaanka aan muuqan ee ilaalinta xeebaha Somaliland. sida lagu sheegay warbixinta, ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland maanta waa ciidan leh geesinimo badan balse qalab yar. waxay isticmaalaan doomaha roondada ee dheereeya maraakiib rayid ah oo dib loo adeegsaday, waxaana la dagaalamaan burcadbadeedda, kalluumaysatada sharci darrada ah iyo tahriibka. laakiin warbixintu waxay xustay in khataraha cusub ee aad uga culus yihiin awoodda hadda jirta, waxaana jira drones casri ah, maleeshiyad la taageero iyo maraakiib quusa iyo dagaal elektaroonig ah ama tiknoolajiyad. taasi Somaliland waxay ku riixaysaa inay ka gudubto ciidanka ilaalada xeebaha una gudubto ciidan badeed si rasmi ah awood u leh. warbixinta Morning Spotlight waxay sheegtay in qorshaha cusub aan lagu salaysnayn maraakiib waaweyn oo kaliya balse diiradda oo saarayso awood aan sinayn oo casri ah. waxaa lagu sheegay warbixinta in qorshaha uu ku jiro maraakiib dagaal oo lagu saleeyay nooca Israa'iil ee SAR class kuwaasi oo leh nidaam difaac oo Sea Dome. maraakiibtani waxay awood u leeyihiin inay soo ridaan droniska, inay joojiyaan gantaalada balastiga ah iyo inay difaacaan dekedda Berbera. xeebta Somaliland waxaa lagu ilaalin karaa doomaha iskood isku shaqeeya ee aan u baahnayn shaqaale badan. warbixintu waxay xustay in adeegyada gantaalada dul heehaabaya ee Haro kuwaasoo awood u leh inay bartilmaameedyo fogfog si sax ah u beegsadaan. warbixintu waxay sheegtay in xeebaha Somaliland lagu dhisi karo xarun signal oo lagu dabagelayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyo isgaarsiinta military ee badda cas ilaa iyo badweynta Hindiya. warbixintu waxay si weyn uga hadashay doorka Itoobiya, waxaana lagu sheegay in Itoobiya ay dhistay ciidamo badeed iyo cutubyo gaar ah oo awood leh kuwaasoo ka howlgeli kara xeebaha iyagoo si degdegana hawl fulin kara. warbixintan ayaa lagu tilmaamay in nidaam cusub oo awood siin kara in ciidamada iyo qalab military lagu dhaqaajiyo saacado gudahood halkii ay maalmo qaadan lahayd. dhanka kale, Soomaaliya ayaa heshiisyo military iyo kuwo badeedba la gashay dalka Turkiga iyo Masar. sida ay sheegtay warbaahinta Morning Spotlight, geeska Afrika waxa uu galay tartan cusub oo quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka oo ku loolamaya saamaynta badda cas. waxaa muuqata inay hayaan laba dhinac oo waaweyn, Soomaaliya, Turkiga iyo Masar. isbahaysigana wuxuu taageerayaa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo joogitaanka militariga ee gobolka. Somaliland, Itoobiya iyo Israa'iil dhinacan cusub wuxuu ku salaysan yahay tiknoolajiyad, sirdoon iyo awood badeed oo casri ah. warbixintu waxay sheegtay in Israa'iil ay meesha ka saartay doodii ahayd gumaysi shisheeye maadaama uu qorshuhu yahay inay Somaliland dhisato ciidan badeed halkii ay saldhig shisheeye laga samayn lahaa. warbixintan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay in Berbera maanta ay isu bedelayso xarun istiraatiiji oo weyn indhahana lagu hayo, iyadoo safiirka cusub ee Israa'iil
Michael Lutum waraaqiisa aqoonsiga ku gudbin doono magaalada Hargeysa. Fariinta la dirayana lagu sheegay inay tahay Baabil Mandab hadda ma aha albaabadii ilmada u ahaa kuwa nugul, balse waa marin ay ilaalinayaan jiil cusub oo badmaaxayaal Afrikaana. Warbixintu waxay sheegtay in dhalashada ciidanka badda Somaliland ay tahay xaqiijinta riyooyin madax bannaani iyo bilowga waqti cusub oo geeska Afrika uu gacanta ku haya ammaanka badda, iyadoo roondo wada jira Somaliland iyo Itoobiya ay ka baxayaan Berbera. Taasina ay keenayso in qorraxdu u dhacayso nidaamkii hore, isla markaasina baddaas ay galayso xilli cusub oo ilaalinayaan dadkii xeebahaasi deganaa.